Først så vil jeg si at den somaliske befolkningen i Oslo har vært veldig flinke. Marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo Soomaalida ku nool magaalada Oslo waxay qayb weyn ka qaateen dadaalka lagu bixiyay ka hortagga iyo xakamaynta faafitaanka fayraska corona. Waa arrin wanaagsan oo aan ku ammaanayo. Taasoo jirta haddana waxaa noo muuqato tirada waayeelka Soomaalida ah ee qaatay tallaalka inay aad u hooseyso. info 123 iyo warbaahinta Nuursom ayaad nagala socotaan. waxaa maanta barnaamijkeena wacyigelinta bulshada marti nooga ah Raymond Johansson, duqa magaalada Oslo ama gudoomiyaha magaalada Oslo. waxaan ka wareysan doonaa xaaladii ugu dambeysay ee coronavirus iyo tallaalka intaba. su-aasha koowaad aan weydiinayo waxay tahay isbuucii hore waxaa soo baxday warbixin sheegaysa in 97% dadka tallaalka loo soo bandhigay ay ku jawaabeen haa ama ay ogolaadeen inay tallaalka qaataan. ma jira farqi u dhexeeya qaadashada tallaalka dadka ajaanibta ah iyo dadka intiisa kale? Først så vil jeg si at den somaliske befolkningen i Oslo har vært veldig flinke. Har bidratt nå til å presse ned smittetallene. Marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo Soomaalida ku nool magaalada Oslo waxay qayb weyn ka qaateen dadaalka lagu bixiyay ka hortagga iyo xakamaynta faafitaanka fayraska corona. Waa arrin wanaagsan oo aan ku ammaanayo. Taasoo jirta haddana waxaa noo muuqato tirada waayeelka Soomaalida ah ee qaatay tallaalka inay aad u hooseyso. waxaana maamulada xaafadaha naga soo gaarayo warbixino ah in Soomaalidu ay shaki weyn ka qabaan qaadashada tallaalka, gaar ahaan dadka waayeelka ah. Arrintaas walwal aad ah ayay nagu haysaa annaga ka maamul magaalo ahaan. Waxaan mar kale ku dhiirigelinayaa dadka inay qaataan tallaalka iyo inay aqbalaan marka loo soo bandhigo fursadda qaadashada tallaalka. Waxay naga caawin kartaa inaan dib u furno magaalada, dadku ay shaqooyinkoodii ku noqdaan, carruurtu ay ku noqdaan iskuullada iyo xarumaha xanaanada, ardayduna ay jaamacadahoodii iyo iskuulladoodii dib ugu noqdaan. mar kale ayaan dadka ka codsanayaa kuna dhiirigelinayaa inay qaataan tallaalka. adiga gudoomiye ahaan ma qaadatay tallaalka? haddii aad qaadatayse maxaad dareentay? Anigu waxaan qaatay qaybta koowaad ee tallaalka. Waxaa laga yaabaa in xoogaa yar aad dareento xanuun marka koowaad aad tallaalka qaadato. Anigu markaan qaatay tallaalka waxaan dareemay niyad wanaag, sababtoo ah tallaalku wuxuu difaac iga noqon karaa inaan xanuunsado. waxaana aad u sugulahay inaan qaato qaybtiisa labaad oo la ii ballamiyay bartamaha bisha Juun. Sidaas darteed waxaan dhammaan dadka kale ugu baaqayaa inay sideeda oo kala sameeyaan. waxaa laga yaabaa in qofku uu dareemo xanuun yar oo hargab oo kale ah, ama meesha qofka laga duray ay xanuunto. marka intaas laga tago wax dhib ah ma lahan, wanaag mooyaane. tallaalku waa sida kaliya ee xanuunkan safmarka aan kaga bixi karno. goorma ayaad qorshayseen in tallaalku uu wada gaaro dadweynaha ku nool Oslo? Det kommer an på hvor mange vaksiner Norge får. Arrintaas hadda waxay ku xiran tahay tirada daawada tallaalka ee Norway soo gaarto. Dowladdu waxay noo sheegtay in ilaa bartamaha bisha Agost ay dhammaan dadka ka weyn 18 sano ay heli doonaan qaybta koowaad ee tallaalka. marka aan wada rajayno in tallaal nagu filan aan helno si aan u awoodno in ilaa dhammaadka bisha Agost aan u wada tallaalno dhammaan dadka ka weyn 18 sano ee magaalada ku nool. Og håpe at alle har fått sin første dose innen midten av august. ugu dambeyntii maxaa talaa u soo jeedi lahayd bulshada Soomaaliyeed ee magaaladan Oslo ku nool? Jeg vil oppfordre alle, og som imamene i de ulike moskeene i Oslo har gjort, sida qaybo ka mid ah imaamyada masaajidda Oslo ay ku baaqeen, waxaan dhammaan dadka loo soo bandhigay qaadashada tallaalka ku dhiirigelinayaa inay tallaalka qaataan. Arrintaas waa muhiim, waana ku celinayaa. Sidoo kale waxaan dadka kula talinayaa inay ku dadaalaan kala fogaanshaha, ugu yaraan ay isku jirsadaan 2 mitir, ayna mar walba xirtaan marada afka, iyo inay nadaafadda ku dadaalaan. waa sida kaliya aan uga bixi karno xanuunkan safmarka ah.